galab wanaagsan aqyaarta hawada nagala xiriidhay halkaani waa TV-ga dalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho waxaa la soo gaaray xilliga daawan jirteen wararkeena qodobada ku jirana waxa ugu waaweyn madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta waxa uu soo xiray shirka sanadlaha ah ee garsoorka Soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa u ambabaxay magaalada London ee dalka Ingiriiska halkaasi oo la filayo inuu ka furmo shir looga hadlayo arrimaha horumarinta shidaalka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa mar kale waxa uu magacaabay xubno cusub oo kamid ah golihiisa wasiirada dawladda wadanka Canada waxa ay sheegtay in ay dib u dejin u sameynayso qaxootiga Soomaalida ah ee ka soo cararay dhibaatooyinka loo geystay dhinaca dibadda wararka ugu waaweyn waxa kamid ah kooxaha hubeysan ayaa waxa ay dil u geysteen laba wariye oo ka shaqeynayay xarun idaacadeed oo ku taala wadanka Afghanistan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal waxa daawateen qaar kamid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu soo xiray shirka sanadlaha ah ee garsoorka Soomaaliya shirkan oo maalmihii la soo dhaafay ka socday Muqdisho ayaa waxa looga hadlayay sare u qaadida heerka garsoorka Soomaaliya iyo sidii wax looga bedeli lahaa xaaladda garsoorka Soomaaliya madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shirkaasi marka uu soo gabagaboobay saxaafadda faahfaahin ka siiyay waxyaabihii looga hadlay qofkii u soo shaqo taga oo u haysta inuu maalin soo goosanayo oo joorniyeeri u yahay ma aha joorniyeeri qofkaas wuxuu mas'uul ka yahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan magaceedu mas'uul ka yahay waxa uu sameeyo oo khaldan ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo taabanaysa hadduu wax wanaagsan ka shaqeeyana caalamka oo dhan halkaan cadaalad soo doonayaan marka halkays uu haleeyo yaa sharafka Soomaaliya haleenayo sumcaddii garsoorka oo dhan haleenayo maxkamadaha sumcaddii wasaaradda oo dhan cadaalad haleenayo isaga iyo maxaan ku raahdaa hay'ad ka shaqeeyo shacabka kala fogeynaya markaan leeyahay shacabka kala fogeynaya hadda waxaan ku jirnaa waqti dib u heshiisiin aan ku jirnaa waxaad gashaa dhulalkaas waxaa laga yaabaa dadkii lahaa waa hore inay ka tageen ay u soo noqdeen si ay qayb uga noqdaan dhismaha dalkooda marka haddii garsoorkaas uu soo dhoweeyo oo uu cadaalad ka shaqeeyo oo qofka xaqiis uu siiyo wuxuu soo dhoweeyey dib u heshiisiinta iyo iscafiska uu shiikha noo sheegay yuu soo dhoweeyey macnaheedu wuxuu ka shaqeeyaa inuu adduunka si fiican ugu noolaado haddii garsooruhu uu halleeyo marka waa meesha ugu dambaysa oo ay cadaaladda ku hakato way wax wanaagsanaan kara ma laha marka maxaa yeelay waa meeshii ugu dambaysay oo dadku aadayeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Qadar iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay u ambabaxeen magaalada London ee dalka Ingiriiska halkaasi oo la filayo inuu ka furmo shir looga hadlayo arrimaha suuq-geynta shidaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa markii uu dalkaasi gaaray waxa uu ka warbixiyay socdaalkiisa iyo xilliga la qorsheynayo in uu shirkaasi ka furmo magaalada London ee dalka Ingiriiska waxaan maanta safar shaqo ugu baxayaa dalka Ingiriiska oo aan ilaahay idinkiisa kula kulmi doono jaliyada Soomaalida iyo madax ka tirsan dawladda Ingiriiska taasoo qayb ka dadaalka dawladda loogu jiro in waxqabadka taabagalka ah ee muddadii 2 sanadood ahaa hirgalay lala wadaago jaliyada Soomaalida meel kasta ay joogto iyo in aan xoojino xiriirka soo jireenka ah ee dawladda Ingiriiska iyo u dhaxeeyay Soomaaliya muddada dheer ee taariikhiga kaasoo xiriir aad u wanaagsan xoojintiisa iyo sii adkeyntiisuna mar walba labada dhinac ay xil weyn iska saaraan waxaan rajeynayaa ilaahay idinkiisa inuu guul ku soo dhamaan doono madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxa uu mar kale isku shaandhayn ku sameeyay golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle sida uu faahfaahinta warkan inooga hayo Maxamed Cabdi Xasan
madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta mar kale waxa uu isku shaandhayn uu ku sameeyay xubnaha golihiisa wasiirada. Waare ayaa sameeyay magacaabista 5 wasiir, 6 wasiir ku xigeen iyo 5 wasiir dowlayaal, kuwaas oo dhammaantood ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle. Wasiirada la magacaabay waxaa ka mid ah Marwo Caashiq Khaliif Maxamed oo loo magacaabay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka, xildhibaan Qadar Xasan Maxamed oo loo magacaabay wasiirka dastuurka iyo federaaleynta, xildhibaan aadan maxamed muuse waxaa loo magacaabay wasiirka ilaalinta bee'ada dhulka iyo badda, xildhibaan faarax maxamed cismaan waxaa loo magacaabay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda, xildhibaan cabdikariin cali nuur waxaa loo magacaabay wasiirka dib u heshiisiinta iyo sidoo kale dib u dejinta. sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdi Waare waxa uu magacaabay wasiiro dowlayaal ay ku jiraan xildhibaan Khaliif Muumin Tuuxow oo loo magacaabay wasiiro dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka, xildhibaan Maxamed Sheekh Axmed Cabdi Faracade oo loo magacaabay wasiiro dowlaha maareynta masiibooyinka, xildhibaan Cabdulaahi Cabdi Afrax ayaa loo magacaabay wasiiro dowlaha wasaaradda biyaha, tamarta iyo macdanta Hirshabelle. Marwo Sacdiye Maxamed Nuur waxaa loo magacaabay wasiiro dowlaha wasaaradda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka. xubnaha wasiir ku xigeenada ah ee la magacaabay waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdulqaadir Abuukar Maxamed oo loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha, xildhibaan Axmed Bariise Xaydar waxaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose, xildhibaan Xalimo Cali Siciid waxaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka, xildhibaan Xasan Maxamed Axmed waxaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Hirshabelle, xildhibaan Cabduqaadir Faarax Axmed Shuutaale waxaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda ilaalinta bee'ada dhulka iyo badda, xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Xaaji Cali waxaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo dib u dejinta ee maamulka Hirshabelle. Tallaabadan isku shaandhaynta ah ayaa ka dambeysay kadib markii maalmihii la soo dhaafay uu madaxweyne Maxamed Cabdi Waare uu culays siyaasadeed uu kala kulmayay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle, gaar ahaan kuwa aan lagu darin wasiirada iyo xubnaha kale ee uu magacaabay. dowladda waddanka Canada waxa ay sheegtay in ay dib u dejin u sameynayso qaxootiga Soomaalida ah ee ka soo cararay dhibaatooyinka loo geystay. Kaynaan Cabdulqaadir ayaa faafahinta warkaasi soo jeedinay. wasiirka socdaalka ee dalka Canada Axmed Xuseen ayaa sheegay in ay bilaabeen in dib u dejin ay siiyaan boqolaal muhaajiriin ah oo laga soo badbaadiyay falalka is-adoonsiga ee ay kala kulmaan gudaha dalka Liibiya. qoraal email ah oo wasiirku u diray warbaahinta Canada The Canadian Press ayuu ku sheegay in Canada ay ka mid tahay dhowrkii wadan ee ka jawaabay codsiga hay'adda UNHCR oo soo gudbisay sanadkii 2017 si dib u dejin loo siiyo muhaajiriinta lagu adoonsaday gudaha Liibiya. in ka badan 150 muhaajiriin ah oo aysan Soomaali ku jirin oo laga soo badbaadiyay Liibiya ayaa dib loo dejiyay Canada, iyadoo in ka badan 600 oo kalena la rajeynayo in labada sano ee soo socota dib loo dejiyo Canada. waxaa kale dowladda Canada ay qorsheynaysaa in ay 100 qaxooti u dhashay dalka Niger oo laga soo badbaadiyay xarumaha muhaajiriinta lagu xiro ee dalka Liibiya iyagana dib loo dejin doono Canada. waxaana dadkaasi ku jira dhibanayaasha ay waxyeeleeyeen kooxaha muqallasiinta jooga dalka Liibiya. si kastaba ha ahaatee muhaajiriinta Soomaalida ee tacdiyada kala kulma muqallasiinta magafayaasha dalka Liibiya ayaan ka mid ahayn ilaa hadda kuwa dib u dejinta ka helay dalkaasi Canada. madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay eedeymaha loo xiray kadib maxkamad lagu soo taagay magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya. maxamed idle cabdi xasan ayaa faafahinta warkan mar kale soo jeedinay. cabdi maxamuud cumar ayaa hadalkaas waxa uu ka sheegay mar shalay la soo taagay maxkamadda federaalka ee ku taala caasimadda dalkaasi ee Addis Ababa, waxaana lagu soo oogay dambiyo badan oo ay ku jirto in uu ka dambeeyay dagaal beeleedyo ka dhacay kilinka shanaad. mar uu garsooraha maxkamadda uu wax ka weydiiyay cabdi maxamuud cumar in uu fahansan yahay dacwadaha loo haysto, waxa uu si kooban u sheegay in uu fahansan yahay isla markaana ay yihiin eedeymo la soo dhodhoobay oo aan waxba ka jirin. dacwadaha cabdi maxamuud cumar waxaa kaloo kula eedeysan 47 xubnood oo ka tirsanaa maamulkiisa, balse 6 ka mid ah ayaa loo qabtay kiisaskaasi, halka inta kalena ay ka carareen gudaha wadanka Itoobiya. xubnaha shalay dacwadda ku heliyay madaxweynihii hore ee maamulka Soomaalida Itoobiya waxaa ka mid ahaa madaxii xafiiska arrimaha haweenka iyo caruurta ee maamulkiisa Raxmo Maxamed Heybe, madaxii hore ee xafiiska arrimaha qurba joogta Cabdirasaaq Saxane Cilmi,
taliyihii hore ee ciidanka booliska ee maamulkii cabdi maxamuud cumar farxaan daahir iyo 2 xubnood oo kale oo lagu kala magacaabo warsame cabdi iyo guuleed cabdi. dhegeysiga dacwadda shalay ayaa ahayd markii afraad ee cabdi maxamuud cumar iyo xubnaha kale lasoo gala joojiyo maxkamadda, waxaana ay maxkamadda federaalka Itoobiya ay sheegtay in dhegeysiga kiisaska loo haysto cabdi maxamuud cumar iyo xubnaha kale dib ay u dhigtay ilaa bishan Febraayo 27keeda. maxamed cabdi xasan, Iidle, idaacadda iyo telefishinka Dalsan, Muqdisho. warka TV-ga Dalsan ayaad la socotaan. markaana dhinaca dibadda wararka ugu waaweyn dabley hubeysan ayaa waxa ay toogasho ugu dhex geysteen 2 wariye xarun idaacadeed oo ay ka shaqeynayeen taasi oo ku taala wadanka Afghanistan, sida warkan markale ku soo jeedinaya Maxamed Iidle. 2 wariye ayaa lagu dilay gudaha dalka Afghanistan kadib markii ay dabley hubeysan ay gudaha u galeen xarun idaacadeed oo ku taala caasimadda gobolka la yiraahdo Takhar ee Taloqan ee waqooyiga wadankaasi. agaasimaha idaacadda la yiraahdo raadiyo Hamsada, ninka la yiraahdo Samiin Xuseen, ayaa sheegay in wariyaasha la dilay ay kala ahaayeen war akhriye iyo wariyo wararka raadiya, kuwaas oo da'doodu ay ahayd da'da 20aadka. 2 saxafi ee la dilay waxaa magacyadooda lagu kala sheegay Shafiiq Ariya iyo sidoo kale Raxiimullaahi Raxmaani. ma kala cadda in marka la dilayay inay idaacadda toos ugu jireen iyo in kale, waxayna agaasimaha iyo boolisku ay sheegeen inaysan wax ra'yi ah aysan haysanin ujeedada ka dambeysay weerarkaasi. waxaana tiradan ay noqonaysaa saxafigii 3aad ee dil loogu geysto gudaha wadankaasi tan iyo bilowga sanadkan 2019. bishii la soo dhaafay maleeshiyada Taliban waxa ay afduubteen kadibna ay dileen saxafi la oran jiray Jafid Nuuri oo shaqaale dowladeed ahaa, isla markaana sidoo kale saxafi u shaqeyn jiray qaab xilliyeed ahaa. ururka Taliban waxa ay marar hore ay beegsadeen suxufiyiinta, waxa ayna 15 suxufi ay dileen sanadkii hore oo noqday sanadkii ugu dhimashada badnayd suxufiyiinta ka howlgala gudaha wadanka Afghanistan. si kastaba ha ahaatee, ururka suxufiyiinta aan xuduudaha lahayn ee la yiraahdo RSF ayaa waxa ay xaruntiisa dhexe oo ku taala caasimadda dalka Faransiiska ee Paris ay ka sheegeen in 3 wadan ee ugu khatarta badan ee suxufiyiinta lagu dilo ay ka shaqeeyaan ay kala yihiin Afghanistan, Syria iyo Mexico. guud ahaan daawadayaal warkii oo idinkaga imaanayay telefishinka Dalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho, anaga inta anigoo Firdawso Sahal ayaa wararka soo jeedinayay. tan iyo warkan warkiisa kale intaan dib ugu kulmayno haddii Allah u qadaro, waxaan idinkaga tegaynaa waqti wanaagsan. Dalsan TV isha wararka sugan.